سود وهذا waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa aan salaamo saxaafadda oo intooda badan ay wadanka dibadiisa ay inooga yimaadeen waxaan kaloo salaamayaa martida inoo timid hadda dhinacan waxa inoo fadhida martidii ka timid jaaliyadda Germany matalaysay haddii wax yar istaagaan si shacab weyn ma u arko saxabsiye waxaa loogu xiga reer Norway jaaliyadooda dadkii ay soo wakiishay waxaa kaloo dhankan inoo fadhiya reer Austria jaaliyadooda dhinaca waxaa inoo fadhiya musharaxiintii saddexda musharax hadday yara istaagaan waxaa kaloo inoogu xiga gudoomiyaha jaaliyadda Jubaland waqooyiga Amerika Cabdullaahi Cabduwali si gaar aan u salaamayna meel dheer buu nooga yimid arrintan darteed aad iyo aad ayaan noogu mahadcelinaynaa iyo shir kale oo howlaha deegaamada Soomaaliyeed horumarintiisa uu meel dheer uga yimid aad buu baa u salaamayna Ilaahay waxaa kaloo inoogu xigaan xaggan gudoomiyihii golaha dhexe oo shalayto ku soo baxay codbixintii oo gudoomiyaha golaha dhexe mar raba inaan ka tago odayaashii marjaca jaaliyaddan Aarhus ka dhisan iyo maamooyinka oo iyagana dhanka fadhiya ugu dhex jira dad kale oo aan reertan maag ah oo aan magaaladan ka imaan oo meelo kale safar uga soo galay waxaa ka mid ah Jibriil oo guddigii farsamada ku jira iyo idilkeena diin oo reer Copenhagen ah iyo Bashir soo dhawaada dhamaantiin reer Haalin waa ognahay waa joogtaan reer Olbo reer Koolin kulligeed soo dhawaada iyo reer Odasan hadalka intaan ku dheeraan waxaan rabaa inaan aayadaha Quraanka Kariimka ku furno بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آياتكم أدعو إن أنفسروا لكن معنى هذا وذو فهم إنسان نبي الهدى والرحمة رسول كاني صلوات الله وسلم عليه وحو ربك كوري حدوث القدس أوليه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قولك واحد شوغا أن حريستا سمد الله إذن كان حريسنا إياه سمد وحا كان حريستا ربك خالقه إن أبو ري وإن رزقه وإن مامله وإن له حتى إنه مركنا حريستاس ربك يدونينه وحال ربا إنه إغنه dhibaatada wadankeena maanta ka dhacday waxaan rabnaa inaanu ku soo dhaweyno maamo Faadmo Khaliif Xasan Cadde oo tixyaro buraanbur inoo soo jeedinay doonta haduu Ilaahay idmo soo dhawow أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ولي أنت عنو ضد اسمه سهر تاجن وكحمهاي وأنا عبصونا يا وإذنك عبصونا يا إن بدن بقى صافيرنا يا أنا قاعدنا waxaan jeclaaday maadaama bulshadii reer Puntland intii ugu badnayd oo meelahan joogta ay fadhido inaan hortooda istaaga anaa doortay cid mataqaan ii soo dooratay ma jirto anaa waxaan jeclaaday marka inaan hadlo maadaama Xaliimo Soofa Faaraxmaanta ayna joogin abwaanadii Puntland ama Soomaali weyn wax badan marka oran mayo in yar oo aan soo qootay baan idin akhrinaya in yar oo qoota boqoradii reer Puntland oo bareeda wacan war boqoradii reer Puntland oo bareeda wacan biran jabinay Puntland baxadaada culus
badiya biriga ka badan baaqi kugu basharay cidi burburkaaga jecel buur lagaga godo war boqoradii reer Buntland oo bareeda culus oo colaad baa idinku baahde barwaaqa hela colaad baa idinku baahde barwaaqa hela oo dagaal baa idin baleeye burhaanta hela oo badbaadiya nabad ku noolaada barisamaa bulshada oo huusay ummadda bardheertihiin war ummadda bulshada oo huusay ummadda bardheertihiin oo Buntland shacabkeeda u bisiinkan idin hayaa Buntland shacabkeeda u bisiinkan idin hayaa ee barwaaqiya nabad ku noolaada berisamaad oo allow beladiya allow baska idinka hay oo cidii burburkiina jecel boor idinka godo burud badanay Buntland baa xadaada weyn oo burud badanay Buntland baa xadaada weyn oo markii balaayadu dhacayso dalkii burburay markii balaayadu dhacayso dalkii burburay oo dadkii soo barakacay oo baahi weyn la qabay mar dadkii soo barakaco baahi weyn la qabay badanka Soomaali meeshii badbaadisay nabada ugu baaqday oo nabada ugu baaqday ummado dhan beegsatay balaayada iyo allow baska ka xijaa martida noo timiday meeshan ku soo dhowow war martida noo timiday meeshan ku soo dhowow waxaa idin macsuumay oo maamulkiina wada war waxaa idin macsuumay oo maamulkiina wada dhammaan mudan iyo marwahaan maanta kala maqnayn oo indhihiina macallin meesha wada fadhiya dhammaan mudan iyo marwahaan maanta kala maqnayn oo indhihiina macallin meesha wada fadhiya maqaawiirtii tolka loo macsuuman yahay waxaan ammaan gaar u soo jeedinayaa gabdhaha hawsha ugu badan gabdhaha ayaa qabtay wax kasta oo la qabtana gabdhaha u badan dhaqaaqa ugu horeeya oo la dhaqaaqana gabdhaha dhaqaaqa ayagaana ugu dhagan nugul oo wax maqla ayagaana ugu gacan furan oo wax bixiya ayagaana ugu hawl jecel oo ugu xoog furan marka gabdhahan rabaana ku soo qaato gabdhaha wada dhalan oo kulligeen gobaatihiin oo gabdhaha Soomaaliyeed oo gobaatihiin oo gabdhaha wada dhalan oo kulligeen gobaatihiin oo gabdhaha Soomaaliyeed oo gobaatihiin oo Buntland gabdheed oo kulligeen dawlad baatihiin oo meeshii loo diro dadaal bay waadayaan oo wixii loo diraba degdegsinya waa u baxshaan oo wixii laga doona degdegsinya waa u baxshaan oo dalkii iyo dibadda iyaga dadkii u maqan oo wixii laga doona degdegsinya waa u diraan oo dagaal ma dumaane nabad bay darka u dhigaan oo colaad ma dumaane nabad bay darka u dhigaan oo dhaawicii bay daweeyaan cadaawad dilay oo agoontii bay daryeelaan derma u dhigaan daariira gudoomiyay gabdhihii dima u dhiseen allow noodaa gabdhaha baan ku tirsanaye allow noodaa gabdhaha baan ku tirsanaye oo markii aan dayaba qalbigaygu waadegaa oo mismana diidaane kullii waa uliya dubkeeda oo dabeecad badanayo dunjigoodu fiicana oo dadaal badanayo dadnimadoodu fiicana dabeecad badanayo dunjigoodu fiicana
ismana diidaane kulliin waa uliya durtubkeed oo dhammaan waa dahaba iyo deeqa iyo dul badan oo markii aan dayaba qalbigaygu waa degaa oo hurdaan dugdhaayo durbaadiiba waangamaa allow noodaa gabdhahaasaan ku tirsanaye waxaan rabaa inaan mikrofoonka hadda ku wareejiyo guddiga farsamada oo doorashada inoo daadihin doona waxaan gelaynaa doorashadii waan u gudbaynaa nidaamkeennii doorashada uma baahna marka dhaqdhaqaaq waxaan rabnaa si nadiif oo qurux badan inay wax noogu dhacaan nidaamkaan ilaalsanno waxaan bilaabaynaa mar dhow doorashadii guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka ama golaha dhexe oo shalay aan u dibdhigannay maantay nidaamka doorashadu u dhacayso waxaa noo sharaxaya guddoomiyaha guddiga doorashada guddoomiye dastuur oo aan ku wareejinayaa isaga halkaas faahfaahin naga siinaya qaabkeena iyo nidaamkeena ay doorashadu u dhacayso waana ku soo dhaweynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب أخرى وحنا نقيا بالشوينتا كسوق يبغى شيء شركان قدرين تمضم. من دل بعض ما نقيا جالية وقوي جدا مارك أرهوس كجو أنت هاي إن جالية بدلان أي مذوبان. مركب لو حنا ما نقيا صحافة نوع كستيتهاي وكسوق يبغى شيء. waxaan idin sharaxayaa qaabka doorashada marka ugu horeeyna gudoomiye ku-xigeenkii golaha baarlamaantiga ee shalay dhinaa in la doorto maadaama gudoomiyihii baarlamaanka shalay uu ku soo baxay Siyaad Cali Jaamac waxaan kaloo idin sheegayaa waxaa jira ergo 22 qof ah oo dooranaysa yaha guud iyo ku-xigeenkiisa ergadaas waxay ka kala timid 7 wadan ee jaaliyadaha Puntland ee ku midoobay midnimadan waxayna wadan kasta leeyahay oo jaaliyadiisu 3 cod wadan kasta 7daas 3 ergey baa ka socda iyaga dooranaya xogayaha guud iyo ku-xigeenkiisa haddana waa bilaabeynaa magacyada waxaan u maleynayaa hadeer ma yeerin karno laakiin waa is og yihiin dadku waa 22 qof marka la codeynayo baa loo yeeraya waana bilaabaneynaa waa inoo furan tahay doorashadani gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka bilaabaneynaa waana salaamantii dhamaantii بسم الله الرحمن الرحيم marka waxaan u gudbaynaa gudoomiye dastuur waa mahadsan yahay waxaan ka bilaabaynaa doorashadeena nidaamkeeda gudoomiye ku-xigeenkii golaha dhexe inaan dooranno waxa u sharaxan oo booskaas u sharaxan maxamed xasan cali iyo bashiir bakayle marka waxaan codsanaynaa marka hore inaan mikrofoonka ku soo dhaweyno oo hal daqiiqo oo CV-gooda iyo waxqabadkooda iyo taariikhdooda ayna siinayaan labada musharax intaana cod ka bilaabin iyo jaaliyada ay ka socdaan marka maxamed xasan ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يمن ريال آد بعد ما هتسنتهين آدنا وإن كم هاد علينا يا حفلة قروح البدن آد كسوق قيبكشان هذا البدن كل ديران مايو وقت جاء بو جابين هاي أنا كم مقعي جوا محمد حسن علي وحنا هاي فيان كجالية بودلان أودن كان نيدرلاند وحنا ترتمى يا قدوميها على بعض برلمان كوا برلمان أنا كا وحنا كل شيء مقالة الله ده قلقلا degmada Boosaaso hoos yimaada dugsi hoose dhexe baan ka baxay Boosaaso waxaan ka soo shaqeeyay urur badan baan la soo shaqeeyay ganacsiina waan ku soo jiray haddana ilaa muddadii ugu dambeysay ilaa 8 sano meelahaas waxaan ku soo shaqeynayay oo aan joogay wadanka Holland oo aan marna ahaa jaaliyada kamid ahaa intii kalena aan la shaqeynayay jaaliyada waxaan u taagnahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka marka waxaan ka codsanayaa xubnaha baarlamaanka ee la doortay
inay codkooda ay siiyaan aad baad u mahadsantiin markana waxaan ku soo dhaweynayaa Bashiir Bakayle waxaan salaamayaa horta dhammaan martida halkaan isugu timid ergooyinka jaaliyadaha golaha baarlamaanka ee la doortay iyo gudoomiyaha jaaliyadda waqooyi Mareykanka oo halkaan marti noogu ah ee Jubbaland inta ka bacdi aniga magacaygu waa Bashiir Cabdulqaadir Xaashi Bakayle waa naynaas waxaan ku dhashay Gaalkacyo waxaan ka baxay hoose dhexe iyo sare waxaan uga baxay Jowhar jaamacaddeedii waxaan Britishan baan ahaa waxaan ka baxay kulliyadda siyaasadda Xamar qurba joog 16 sano ahaa wadankii intaas dib ugu noqon haddana waxaan u taagnahay tartanka gudoomiyaha koowaad ee golaha dhexe ee jaaliyadda midowga jaaliyadda Puntland ee Yurub waxaan idin ka codsanayaa golaha baarlamaanka inaad codkiina siisaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsan yihiin odayaashu waxaan markaan u gudbaynaa marka doorashadii iyo codaynteedii waxaa codaynaya 13 xubnood oo isugu jirin gudoomiyaha 14 ku ah waxaan u bilaabaynaa jaaliyad عاشة محمد وعضيسي مريم محمد وعضيسي haddana waxaan u gudbaynaa jaaliyadda Denmark labada xubnood inay soo istaagaan baan codsanaynaa idil Kennedy waa codaysay Saciid Cabdille waa codeeyay waxaan u yeerayaa jaaliyadda Belgium iyo labadooda xildhibaan Bashiir waa codeeyay Nasteex waa codeeyay markana waxaan u yeeraynaa jaaliyadda Switzerland iyo labadooda xubnood Maxamed Xuseen Jirde waa codeeyay Canaadir waa codeeyay jaaliyadda Norway محمد فارح وعدي محمد عبدي وعدي جالية أوستريا وحا عضينا سهل حلبان جالية أوستريا عيسى محمد عيسى وعدي جالية أوستريا مركان نوعنا ماتي عضينتي waxaan markaan ku dhawaaqaynaa natiijadii doorashada gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe waxaan noogu dhawaaqayaa natiijada gudoomiyaha guddiga doorashada mudane dastuur natiijadii gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe baarlamaantiga ee midowga jaaliyadaha Puntland ee Yurub Maxamed Xasan wuxuu helay 12 cod halka Bakayle uu helay 1 cod sidaa darteed waxaa ku guuleystay Maxamed Xasan oo ka socda wadanka Holland halka waxaan ugu hambalyeeynaa saaxiibkay Maxamed Xasan gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda inuu ku guuleystay waa ugu hambalyeeynaa waana kula shaqeynayaa haddii Alla idin mabruuq aad baan uga mahad celinayaa guddigii baarlamaanka ay doortay iyo adeer oo aan ka guuleystay mahadsan waa mahadsantiin saxaafadda waxaan noo dhammaatay doorashadii baarlamaanka ama golaha dhexe ama golaha shuurada ama golaha marjaca waa dhammaystiran yihiin gudoomiyihii shalaan doorannay gudoomiye ku-xigeenkiina haddaan doorannay xoghayntana waxaa iska soo dhaxuli doona baarlamaanka dhexdiisa ayagaa magacaaban doona haddii rabbi idmo hadda waxaan u gudbaynaa doorashadii weyneed ee midowga jaaliyadaha Puntland ee Yurub ergada 12 ah ee la rabo inay doortaan xogayaha guud iyo ku-xigeenkiisa Maryan Saciid Maxamed
محمود مريم سعيد محمود عاشة محمد عاشة محمد محمود محمد حسن علي سياد علي جامع عيسى محمد عيسى خضر قنبي محمد عبد أحمد محمد فارح محمد عبد القادر محمد حسين بشير عبد القادر محمد حسين بشير عبدي نصتح عبد عاد عبد الرحيم شيف مصولة عبد الرحمن شيف مصولة عبد الرحيم شيف مصولة فرحية يوسف القضاء عبد الكافي محمد حسن إدل كندي أمين قيرة مولد بشير محمد عبد الله فرح علي waxaan saddexda musharax ee u sharaxan hogaaminta midowga jaaliyadaha Puntland ee Yurub waxay kala yihiin Saciid Daahir Dhimbil oo ka socda jaaliyada Denmark iyo محمد عبد الرحمن علي oo ka socda jaaliyada Jarmalka iyo عبد الحكيم عبد إسماعيل وكسر جالية هولن وعن كبلا بنا خطبتها مشرحين تا مشرح والبوحان سين إن 5 دقيقة أو كسو قد بيسي فيجيسا إيو خطبة ديسا وعن كو رئيسين إن كسو دوين إن قدوميها مرتدى اللوية هاي سعيد داهر دنبل. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مروين وحاناد مهدنا يا الله سبحانه وتعالى ما أنت إدمي إنه سوكا كانوا مدشان قروح بدن أي نسوقني أنت كبعدي وحان مهدنا يا والسلام يا دمان ولا لها مرتدى النوع مرة نلاله يعني مرتدى النوع هين إنه يمد دلالك يوروب قبل كمده قدوميها شو ده سيدا قدوميها جالية بنتلان ترمني محمد عبد الرحمن علي قدوميها جالية بلتن إسماعيل قدوميها جالية نورويد هرسي قدوميها جالية استوريا سياد أو برلمان كان إنك أضيع هجامينية إن محمد علي أو وكيل كقدوميها جالية هولند قدوميها جالية سويسرا محمد حسين شردي دمانتين يمضيناش الله سعده مدن علي مروين سودوا هذا مرة بعد مرة صدحات وحنو ما هذنا يا والسلام يا لبضة قلة شهيد بنتلان ودك دنمارك قلها مرجعية قلها فلنته إذن كلا ودن سلامي وحن سلام يا قلة ياشا مرت شرفته عنده قبلها رير بنتلان رير دنمارك وسيدي قبل برامبرك أيكو شاكتي تيرارك الله صحيحة جود هان شعب كبوتلا قار هان شعب كهلك كنا الدنمارك إليه أنت كبعدي مدن المروين أنت كبعدي مقعيق هو سعيد داهر دنبل أو سعيد داهر عبد الله وحنا المشرح وتاجن هجانك مدوجة جالدها يورو بنتلان أهانا هجامين جوجشان أصدقوا إذا بوحكا يستا شعب كيسا وروح بدن رير بنتلان رير دنمارك
gaar ahaan waqooyiga denmark magaalada aws mudane marwooyin waxaan ku dhashay degmada baraawe halka baraawe cidda taqaan waxaan u malaynayaa meesha dalcaddu ka fuusho waddada ayaan ku dhashay isbitaal yaroo ku yaalla ruush ku dhisay nasiib wanaag hooyaday adeeg bay ugu socotay baraawe sablaalay ka timi 1978 December Soomaaliya markii burburisay dugsiga hoose dhexe dhama Yaasin Cartan oo ku yaala xaafadda Madiino ayaan igu dambeysay markaan ka soo qaxay magaalada Muqdisho waddanka Suudaan oo aan u gudbay waxaan u gudbay inaan waxbarasho ka diyaariyo nasiib wanaag semesterkii saddexaad jaamacadda markaan dhameeyey magaaladii aan markaas joogay ee abiyey oo ahayd magaalo loogu talagalo xilligaas oo kale inay ardayda wax ku diyaariyaan iyo dhammaan koonfurta sida magaalooyinka waaw iyo Baxar Qazaali waxaa qabsaday cadowgii markaa dowladda Suudaan ay lahayd oo isbahaysanayay sidaa darteed 2 bilood ka mid ah amar uu bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Suudaan Generaal Omar Bashir waxaan ka mid noqday ragga difaacaya waddanka kelmaddu waxay ku timid madaxweynuhu wuxuu ka khudbeeyay asagoo diyaarada wata goobtaas wuxuuna yidhi xaya cala aljihaad xataa daalaba cilmi غير السوداني أو السوداني كلمة دا صدرتها وحانو قال لي دقالكي مو رجال يمروين ما أنت وحن شوقنا عوس وحن وشيء يا مرتدا شرفت له أنت أنا أقدم برانس كيجا وحن مشرح حدي لي يقول يستو وحن قرد دونا هوسنا كحريقيا إن hawsha aan u fadhino ee muddada lagu soo haraaday hameenna lagu soo jeeday in halka aan ka taagnahay ka wado ilaa saacadda u dambaysa sababtaan saa u leeyahay waad garanaysaa afrikaanku waa xog jecel nin madow oo Mareykan oo professor wuxuu yiri 3 nin buu caalamka ka soo qaaday ninka madow buu yiri waa waalan ninka cade reer galbeedka waa doqon bi ninka Eeshiyaankaana doqonnimo iyo wali u dhaxyaabi wuxuu yiri ninka cadaanka waa doqono kaligiis baa raba inuu noolaado xabadna aan hadaa sameeysid marka hore wuxuu ku furayaa saxaafad sumbay leedahay waa lagu dhimanayaa hadii taa lagu joojo waa bamba ku dhufanaya ninka madow alaashinka marka laga helo doorasho dadkiisa ayuu gumaadaa marka waa waalan Eeshiyaanku labaas u dhaxeeyaa yiri marka ma noqonayo ninkii waa la oo markii ay beeshu dambeysay marayso wax qasa mudane marwooyin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo arrintan dhib weyn baa laga soo maray dhibkeedii baan rabaa markaan guda galo waxa ii soo istaajiyay inaan noqdo musharax daladan waddankii aan ka nimid ee daludug oo runtii laga badiyo marka laga rabo gogolaha aan ka bartay inta badan gogolaha aan ka bartay waa laga badiyaa magaalada Garowe ayaa anoo 8 sano jira 3 bilood aan joogay magaalada Gaalkacyo 15 bari marka iigu dambeysay waddankii ee aan Soomaaliya iigu dambeysay sidii qaxo u dhacayna Soomaaliya kuma laaban mudane marwooyin midnimada Puntland haddaan qodobka u horeeya galo waxaan ka shaqayn doonaa hadday doorataan oo dusha iga saartaan mas'uuliyadda maanta aan u taagannahay waxaan hoos ka xariiqi doonaa isu keenidda abaabulidda iyo doonidda shacabka Puntland ee qurba joogga xataa hadday dhaafto qaaradda Yurub dhinaca waxa qabashada waxaan doonayaa inaan idin cadeeyo hadafkayga siyaasadeed ee wax ku qabanayo kow waxaan la dagaalami doonaa kana soo horjeesan doonaa anoo hadda afkiina ku hadlaya hadda ay doorataan
lacaga si tartiiba loo diro oo Puntland gasha waxay noqon doonaan lacag xafiis leh qurbo jooguna ay ku bixiyaan wax magac ayagana u soo jiida waddankan wax tar u leh haddaan qodobka micnihiisu waxa weeye in badan baynu lacag diraa si tartiibana wax loogu qabtaa ma dhahayo waa la musuqmaasuqay maaha inaynu madaxdeena aynu aflagaadayno nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska u dambeeyay xajada wadaa wuxuu yiri wa adiicu umraakum tadkhulu jannata birabbikum bighayri xisaab tayib sidaa darteed hadday tahay ma aflagaadaynayno laakiin waxaan rabnaa inaan wax la hubino shaqadiina wax ka qabsano waa nagu waajib Puntland baanu nahay inna marti uga manihin waxtarka iyo hiilada waddanka u baahan yahay mudane marweyn taas waxaan samayn doonaa xafiis nala shaqeeya sida haddaba aan sheekada aan ku wato xiriirkayguna uu mar hore galay gudaha in la helo xafiis la shaqeeya jaaliyadahan oo ka furan magaalada Garowe aan sirta iyo xogta ku kala qaadano hawsha loo baahan yahay mashruuca loo baahan marka la fuliyana inaanu nahay kuwa ayagu priority-ga u leh goob jooga u ah ayagu hogaaminaya oo aan loo yeerin halka waxa ka bixi doonta lacag dadban oo si khalad u gashay ama si khalad u dhintay oo jeebkiina ka baxday waxay faa'iido u tahay in mashruuc loo baahan yahay oo muhiim ah uu fulo si fudud mudanayaal iyo marweyn haddii aan kow galo mashaariicda anigu aan rabo inaan ku hogaamiyo shacabka Puntland anigoo jeebkiina isticmaali doona oo aan u aabaleen balanbiina aan ka dhigi doono wixii Soomaalidu dhihi jiray sidaan waxaan xasuusanayaa dalka Soomaaliya muddo dheer laga soo bilaabo 60kii ilaa hadda wuxuu ku jiraa tuugsi dadban oo nooc la habeeyay waxa aynu leenahay ee waddan ku faantamo ma jirto hal wax oo laga dhisay cashuurta dalka Soomaaliya sidaa darteed waxaan rabnaa maanta jeebkeena waxaan ku dhisnay inay ka muuqato sababta keentay dalka Soomaaliya inuu burburo guud ahaan gaar ahaan hay'adihii dawliga ah waxa keenay imaada sheegin mashruuciina mugul inaad ii sheegtaan baa runtii ma maqleen daano Soomaaliya waxa burburiye waxa weeye deeqdii banaankeena ka timid oo aynu ahayn wax aynu inagu leenahay ayaa burburisay marka waxaynu leenahay ma burburinayno haddaad doorataan waxaan gudagalayaa hawshaydan kow waxaan qodobka horeeya saari doonaa isbitaal ay leeyihiin ciidamada Puntland oo laga dhisi doono duleedka xerada 54 oo aan rabo jeebkiina inaan ka dhiso si difaacayaasha dalka difaacaya diinta iyo shacabka iyo ciidda ay u helaan meel lagu badbaadiyo dhaawacooda labo waxa qodobka labaad yahay in dalka Puntland waxa ka jirta biyalaan in riig xuduudka Jarmalka hadda yaala oo $80,000 oo ah kan ugu dheer inaan gadno ka bacdina labadii biloodba gobolada Puntland uu gobol joogo 40 ilaa 35 ceel isu jirana loo sameeyo waddanka qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan dhalinyarada Puntland hubiyo inay ku nastaan ciidda daludug siday u jeclaystaan taasna waxay tahay in garoomada kubadda cagta Puntland aan si degdeg ah wax u qabanno waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم والله مغلي يا بان بسم الله الرحمن الرحيم مدن يال يا مروين مرتي شرف تقاياها له isugu timi madashan quruxda badan ay ugu horeeyaan marjaca odayaasha culumaa u diinka hooyooyinka iyo daayirta marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبادات أنا ولي من نقول دجاليهن سيدا صاحبك. فرصة داسي وايد دافتي. وعن ربا وحنا مقعي وحنا اللي هذا محمد عبد الرحمن علي وحنا هاي قدوميها جالية بونتلان دلك جرمالك maantana waxaan u taagnahay xilka midowga jaaliyadaha qurba joogta ee Puntland lagu magacaabo Speedo mudanayaal iyo marwooyin magacayga waa idin sheegay balse
waxaan ka cudurdaaranayaa daadayda idiin sheegi mayo waayo waxaa laga yaabaa dad badan oo u haystay inaan ka yarahay inay ogaadaan daadayda runtii waxaan jeclaa xilkan maanta aan u taagnahay in rag badan oo dhallinyaro ah oo halkan fadhiya ay isi soo taagaan oo iyagu aan isleeyahay way kaa mudan yihiin balse markii ay igu soo riixeen ayaan isiri habiqina meesha istaag intaa waxaa dheer anigu waxaan ku dhashay puntland gaar ahaan caasimadda puntland ee garowe waxaan ka soo tegey dalkii intii aanu burburku dhicin waxbarashada dugsiga sare waxaan ku dhammaystay dalka jarmalka sidoo kale waxaan ka qaatay dalka jarmalka 2 shahaado oo kuliyadaha farsamada iyo kuliyadda dhaqaalaha ilaa sanadkii 2011 waxaan ka shaqeynayay jaaliyadda Puntland ee dalka jarmalka jaaliyaddu sababta ugu weyn ee aanu u istaagnay halkan inaanu qabanno xilkan waxa weeye waxaanu nahay xudunta qaaradda Yurub dalka jarmalku wuxuu ka mid yahay dalka shanta dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka sidoo kale wuxuu udub dhaxaad u yahay qaaradda Yurub isla mar ahaanta jaaliyaddu waxaanu doonaynaa inay udub dhaxaad u noqoto midowga jaaliyadaha Puntland ee qaaradda Yurub jaaliyadda reer Puntland ee dalka Germany muddadii ay asaasnayd waxay qabatay waxyaabo badan oo ay bulshadeeda reer Puntland ay ku faani karaan mudanayaal iyo marwooyin sanadkii 2011 waxaanu ka qayb qaadanay abaarihii dalka saameeyay sanadkii 2012 waxaanu geynay 1 tan oo daawo ah Puntland 2012 13 intaba waxaanu geenaynay deeqo iyo qalab caafimaad oo si isdaba joog ah mudanayaal iyo marwooyin deeqahaanu geynay dalka Puntland waxay gaarayaan marka dhaqaale ahaan la eego 1,700,000 oo euro mudanayaal iyo marwooyin jaaliyaddu dhaqaalaha iyo deeqaha ay dalka gaarsiinayso waxay u eegaysay si hufan oo aan qabyaaladaysnayn waxaanu geynay degmooyinka Buuhoodle Baran Baargaal ilaa magaalada Kismaayo ee Jubbaland mudanayaal iyo marwooyin waxaan kale oo idinku bishaareynayaa 2 mashruuc oo dhaxalgal ah in jaaliyaddu gacanta ku hayso maanta mashruuca koowaad waxa weeye inaanu ka furayno dhawaan mustaqbalka dhow xarun daawo Puntland gudaheeda oo ka qabtirta shacabweynaha Puntland baahida dawo ay u qabaan mashruuca labaad aan maanta gacanta ku hayno aanu jecelahay isaguna inuu dhawaan soo dhamaado waxa weeye inaanu tababar hay'ado Jarmal uga helay dhakhaatiirta reer Puntland labada dhakhtar ee ugu horeysa ee tababarka gelaya waxay baranayaan qaliinka dadka ku dhasha inta ama waxa loo yaqaan dadka faruuran waa markii ugu horeysay hadii uu mashruucaasi hirgalo geeyiga Soomaaliya ama dhakhaatiir Soomaaliya ay maadadaasi bartaan waa soo koobaya mudanayaal iyo marwooyin intaasi waxay ahayd waxqabadkii jaaliyaddu qabatay maaha waxaan anigu kaliya qabtay waxaan qabtay rag badan iyo haween badan oo reer Germany ah aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana aad iyo aad u bogaanidinayaa bulshooyinka iyo jaaliyadaha halkan isugu yimid dhamaantood gudiyadooda waxaan rabaa 2 qodob inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo qodobka ugu horeysa waxa weeye hadii xilka jaaliyadaasi ama midowga jaaliyadaha la doorto waxaan ballan qaadayaa in aan waqtigayga dhaqaalahayga iyo xoogaygaba u huro dadkayga iyo dalkayga anigoo ka duulaya xigmadii ahayd isweydii
waxa aad dalkaaga iyo dadkaaga u qabato ee ha isweydiin waxa dalkaaga iyo dadkaaga ku qabto waxa iga ballana in aan dadaalkayga kartidayda aqoontayda iyo waayo aragnimadayda ugu adeego dadkayga iyo jaaliyadahayga iyo shacabkayga waad mahadsantihiin markana waxaan siinayaa gudoomiyaha gudoomiyaha musharax ma aniga ma cilad xagga waa markana waxaan siinayaa musharaxa saddexaad cabdixakiin cabdi ismaaciil gudoomiyaha mid ka mid a xubnaha jaaliyadda Puntland ee Holland haddana ah musharax u taagan hoggaanka jaaliyadda gudoomiyaha golaha dhexe ee jaaliyadda qurba joogta Puntland mudane Siyaad علي جامع قدومية كحجينك قرب شوكتا قولها دحية قرب شوكتا بنتلان مدن محمد حسن علي حبناها شرفت له كالسعودة جاليدها بنتلان إغارات يوروب ترتمياشا حلكا قدوميها جاليدها بنتلان إغارات يوروب بعض الصحافة دا ورنتي أنا كتر سنة هاي balse maanta aan u digaroogtay bal inaan dhinaca hoggaanka aan jaaliyadaha Puntland maadaama aan ka mid ahay jaaliyadda Puntland kana mid ahaa 12 dhalinyaro ee markii Puntland la aasaasayay 1998 loo diray gobolada si ay odayaashii yagleeli lahaa Puntland u soo keenaan isla markaasna ay loo yagleeli lahaa Puntland ubaxa jaaliyadda Puntland ee maanta wacdaraha soo dhigay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii saaxiibaday waxaan ila tartamaya waxaan uga fiicinahay anigu ubaxa waa la ciyaaray maanta laakiin ayagu lama ciyaaray waayo waxaan maanta aan doonaynaa waxay tahay waa inaan ayaga badbaadinaa marka qof fahmi kara ubaxaas waa isleeyahay maanta cidi kaagama habboona magacaygu waa cabdixakiin cabdi ismaaciil mudanayaal iyo marwooyin waxaan u sharaxnahay xilka gudoomiyaha golaha gudoomiyaha xogayaha koowaad ee jaaliyadaha Puntland ee qaaradda Yurub markaan aan leeyahay waan u sharaxnahay ma ahi qof asagu soo sharaxay laakiin xafladan maanta aad u jeedaan ee quruxda badan waxaan ku jiray guddigii farsamada ee ka soo shaqeeyay ajendaha maanta aan meeshan shirka aan u fadhino ayaga igu dhiirigeliyay inaan hor istaago isla markaasna aan wakiil ka noqdo maadaama aan soo shaqeynay war meeshaas yaana uga tagine bal hadda ninka ku habboon aanu geyno marka saaxiibada ila tartamayaan taasaan kaga duwanahayo waxaan is leeyahay mar hadda anigu aan soo sharaxin aan la soo sharaxay waxaan is leeyahay kaagama habboona mudanayaal iyo marwooyin xubnaha sharafta leh waxaan rabaa inaan idiin sheego waxbarashadaydii iyo meesha aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka Mudug gaar ahaan magaalada la yiraahdo Gacnafale oo u dhow wax yar u jirta Gaalkacyo dugsigii hoose waxaan ku qaatay degmada Burtile ee gobolka Nugaal waxaan kayga sarana waxaan ku qaatay Gaalkacyo waxaan kaloo aan Gaalkacyo ka sii qaatay iskuulkii la oran jiray RBS maanta aad aragteen meesha uu marayo oo iskuulaadka hadda Puntland ugu xoog badan ku jira waxaan ahaa kuraastii ugu horeysay ninkii gaday
mudanayaal iyo marwooyin haddii aad doorataan maantay aan sii dhammaystiraan leeyahay maxaan ku dhahaa CV-gayga waxaan kaloo aan bartay saxaafadda oo aan ka bartay Nairobi iyo weliba Amsterdam waxaan kaloo bartay minus brain wax la yiraahdo kobcinta maskaxda maadaama aanu nahay dad qabaa'il iyo weliba ka soo jeeda dad aqoon si bal dadka maskaxdooda loo kobciyo waxaan kaloo aan bartay community development wax la yiraahdo sida bulshada loo horumariyo waxaan kaloo aan ku bartay kamid ahaa haddana aan kamid ahay jaaliyadaha Soomaaliyeed wadanka Holland dadka u ololeeya isla markaasna madaxda iyo waliba maxaan ku dhahaa soo dhaweynta iyo waliba waxaan ku dhahay horumarka arrimaha bulshada iyo dhalinyarada waxaan kaloo aan wax ka qabtaa waxaan ka soo shaqeeyay telefishinka dawladda Soomaaliya SNTV oo aan agaasimo ka ahaa 3 sano ka hor waxaan haddana ahay agaasimaha telefishinka Somali Cable oo aan hadda aan u ahaa intaana ka diga rogan aan soo sharaxin waxaan is leeyahay waxa himilooyinka aad qaban kartid waxa kamid ah isu tanaasul inaad dadka reer Puntland ee qaaradda Yurub aad ugu shaqeyn kartid inay isu tanaasulaan inaad daacadnimo ugu shaqeysid inaad midnimadooda ka shaqeysid inaad wada tashi aad wax ku wadid hadii Allah uu wada ogolaado waxaan ahay dhalinyaro waxaana aan jeclahay inaan maanta aan dhalinyarada aan niyadda ka jabin sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa mudanayaal iyo marwooyin inaa codkiina siisaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Denmark odayaasha marjaca iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan quruxda badan aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan u dhiibayaa gudoomiyaha guddiga doorashada dastuur oo ku dhawaaqaya natiijada doorashada wareegeedii labaad mudanayaal iyo marwooyin waxay la tahay doorashadan sugaynay سعيد داهر دنبل مشرح سعيد داهر دنبل يا محمد عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن علي وحو هلي صدح يطبن حبنود بو هلي هلك سعيد داهر دنبل وهلي سداد حبنود سيدا درتاد laga bilaabo saacada xogayihii guud ee midowga jaaliyadaha Puntland ee Yurub waxa noqonaya Maxamed Cabdiraxmaan Cali oo ka socda dalka Jarmalka waanu hambalyeynayna waanu soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha baarlamaanka ama gudoomiyaha golaha dhexe Siyaad Cali Jaamac reer Denmark waqtiga Denmark Aus jaaliyadeeda aabayaasheeda hooyooyinkooda gabdhahooda ubaxii yaryara dhalinyaradooda aanu kala harin inay dhaliyaan midow qurbo joog jaaliyadeed oo Puntland ah waana inoo dhalatay وأنا دلتي هذا دلتي حبي وضتا وما أركته ما صعون كرته وعرفت عشقه وعرفت هذا الجردادين قرب قل هذا جورتدي أنا شدني هو يمكن قيمها لها مرتدي سلاسنيد حوجي عن كلاهرين بالغ ربعين لما يسترا وأنا مد ما أنت الصمد واه قرب شوكتا يوروب intaan hadda Yurub wareegayay ma arag jaaliyada Denmark jaaliyad la mid ah Aus waad ku ammaanantihiin walqashi sheekha inoo sheegay waxaan ku wanqalaynaa dhibaatada dadkeena haysata waxaan ku dhawaaqi doonaa deeq aan gaarsiinayna dadkeena ama ha noqoto jaaliyadaha wadanada sida looga kala yimid ama ha noqoto hadda hananbay aynu halkan ka bilaabayno aynu xundun uga dhigayno oo aynu jeebka gacanta gelinayno
oo qof walba wuxuu hayo waxaan doonaa ka bacdina anagu guryahaygii baan ku noqonaynaa wixii annaguna aan ku dari karno jaaliyad walba waxbay ku soo dari doontaa saasaan inagu wanqal uga dhigi doonaa haddii ilaahay idmo arrintii abaaraha inaan midowga guud ee jaaliyaduhu ay deeqdaas gaarsiiyaan cadadka deeqdeennu aan goynayno dadkeenni dhammaan mayso oo hadda midaynu hormarinayno way ka dambayn doontaa deeqo badan oo jeebkeenna iyo mid aan jeeb kale ka soo saarnayba waa gaarsiin doonaa hadalka sii badan maayo waa la daalan yahay safarana dadku waa sugayaan waxaan ku soo dhawaynayaa marka koowaad gudoomiye naga mudan ixtiraam aad u weyn bikulli cisag ma hayno shahaado iyo bil sharaf aan guddoonsiino laakiinse waxaan ugu magac daraynaa halyeygii midowga jaaliyaddan ugu magac daraynaa waa Siciid Jibriil waa halyey har iyo habeen muuseexan 3 bilood annagoo shaqaynayno juhdi ku jirno hadda xamaalayna waad garanaysaan Yurub maaha dalkeena 6 saac inta la shaqeeyo la seexan jiray baa telefoon Siciid uu ku jiray oo laha war xagee maraya war hal dhaqaajiyo hawsha war hal socodsiyo oo week kasta 3 jeer shir la isugu imaan jiray waxaan hilmaan kala lahayn oo aan la ilaawi karin walaalkayagii noo fuudan jiray call conference aad garan kartaan telefoon maanta Yurub jooga qiimaha uu leeyahay inuu dad isugu xiro waa gudoomiyaha dawladda Switzerland jaaliyadda Switzerland Mr Jirde waxa xusid midan oo aanan ka tagi karin iyaguna inaan sheegno ay muhiim tahay walaalkeen Jibriil Qoorey oo dadaal badan iyo juhdi badan geliyay qoobay waa isku midkii weeye reebadu kama magacaasna waa la baxaare marka juhdi badan geliyay dhammaan jaaliyadihii aabayaashii haddana waxaan sidii haddee looma kala maqnay Jubbaland iyo Puntland ba meesha waa fadhidaa Jubbalandna gudoomiyadeedii jaaliyadda ay nala jooga xildhibaanadeedii iyo odayaasheedii ay nala jooga haweenkoodii ay nala jooga aan meesha ka ku dhaxarkay haddii looma kala maqnaa oo loo mataanayno ahaan dadaalkaana Puntland haddee maamul goboleedyo ma jirin iyada curisay maantana tan waxaan ku curinaynaa inaan qurbo joogta waynu bilownay xafladii hadda kulba isdaba qabsan doonaan oo waxaan maqli doonaa midow kale maxaa la dhihi jiray isoo qabo koonfur galbeed iyo haddii ilaahay ku roon yahay Jubbaland iyo haddii waxaynu samayn jirnay u bilaabaynu ahaan jirnay way socon haddii alla idmo waxaan ku soo ururinayaa hadalkaygii inaan siiyo walaalkay Siciid Jibriil inuu munaasabada Siciid Dambiil inuu munaasabada ka jeediyo hadalkii ku muhiimka ahaa iyo oraahda aan uga baranay halganka iyo juhdiga ahaa waana mahadsantihiin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات مدن المروين aad baad u mahadsantihiin intii codka ay siisay iyo intii aan siinba tartan hadduu dhaco waxaa caadi ah inuusan laba nin ka wada qoslin laakiin waa caadi amaanta gudoomiye waxaad amaanta marka hore hormariyo saaxiibkay calaa kulli xaal waan soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad intaba dadkan waa dadkiinii iyo magaaladii dadkiinu deganaayeen waxaan u malaynayaa inayn ahayn ama ayan kow ii ahayn inaan maanta halkan anigu noqdo gudoomiye ama aana noqon waxbaa kow ii ahaa welina kow ii ah ninkii iyo qofkii ay wax kala la tahay aniga waxaa kow ii ah Puntland iyo horumarkeeda iyo intii aan soo sheegay iyo kuwa ka badan ee qabsoomaan waxaan filayaa in maanta arrintii aanu ku soo dhimanaynay muddada maanta ahayd maalintii u dambeysay inay ku dhammaatay guul
iyo farxad waxaan u mahad celinayaa walaalkay maxamed cabdullaahi cali cabdiraxmaan cali waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda qaaday dadka reer puntland baa kaa sooyay walyaha Germany oo galabta koobkii la caraabana waxaan leeyahay ilaahay guriyina nabadgeeyo waxaan leeyahay ummadda ilaahay waxa ugu khayr badan kuwa waxdada ilaaliya waxdadu waa shay muhiim ah ninkan hadda waa doorateen walaalkay maxamed goobtaad ku doorateen kuwii doortay iyo kuwa aan dooranba waxaan leeyahay garab istaag oo caawi hadday dhacdo in maxamed galabta halkan reeriyada ku saarteen hadhowna aad gacmaha laabataan dadku isku mid maaha waa qof ay dhab ka tahay waxaa loo taagan yahay socodsiintiisu iyo qof indha ku garaadla ah oo derbiga aan dhaafin laakiin indheergaradku way ka aragti dheer yihiin kuwa aragtida gaaban ee dadkeenna ku dhex jira mararka qaarkoodna dhibaateeya mudanayaal iyo marweyn waxaan leeyahay halkan hawshan dhammaadka ah galabta oo wax yar inuu ka harsan yihiin u malaynayo guddoomiye ku-xigeenkii in la dooran doono waxaan leeyahay meesha ay ku socoto iyo meeshii laga keenay maanta farqi baa u dhexeeya laakiin waxaan rabnaa maanta meeshay ka taagan tahay inay sawir ka bixiso meesha ay tegi doonto oo ah riyadii guuleed oo ahayd qurba joogta Yurub inay midoobaan isku xirmaan taasna asalkeedu uu yahay iyo macaankeedu in dal udug iyo dadkeeda loo heliyo dal udug waxay mudan tahay ma samayn karo dadkeedu waxay mudan yihiinna ma samayn karo laakiin waxaan leeyahay inta aan ka gaari karo aan ka gaaro waxaan u mahad celinayaa marti sharafta dhammaantood jaaliyadaha dhammaantood waa idin mahad celinayaa waxaan u maleynayaa inagoo soo xidhin saaqnayna soo imaan doonaa annaguna waan soo boqon doonaa haddii alla idmo wada shaqaynteennina sideeday baahan doontaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay cabdiweli axmed warsame oo uga yimid waddanka maraykanka inuu maanta halkan joogo waan ku mahadinayaa safarkii dheeraa gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ee North America waxaan u mahad celinayaa waan ku darsanayaa mar labaad labadayda gole siiba gabdhaha Puntland ee magaaladan iyo agaarkeedii Denmark ku nool siiba gabdhaha halkaa ka soo jeeda oo amatoorka hogaamiye jaaliyadda aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiye waa kula shaqaynayaa waxaana hoos ka saxiixi doonaa sida halkii aan ku furtay in meeshii shalay aan ka taagnaa arrintan aan ka istaago waan ku mahad celinayaa haddana waxaanu siinaynaa guddoomiyaha jaaliyadda Jubbaland North America inuu laba kalmo yiraahdo haddii alla idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مروين آدي آد بان وفرح سنة إيمانتي جاليدة رير بوتلان دورشة أي سميين وعن مرقاتيك كاهي وقب جوك كاهي مانت عن فرديو آدي آد بان نيوهم بليين يا وحان ليهاي سدح دينينا مشارحين تاها آد بان نيوهم بليين يا وحان ليهاي واد ما سنتين مدن قدوم يسودو waana kula shaqeynaynaa haddaan reer Jubbaland jaaliyadooda meel kasta ay joogaan kuwa Yurub kula jooga hadda iyo kuwa ka maqanba waxaan ku leenahay hambalyo shaqo badan baa ku suugaysay wada shaqeyn jaaliyada inaan sameeyno insha Allah hambalyo waan hambalyeynaa dhamaantiin waa gabagabadii waxaan haddana ku dhiibaynaa guddoomiyaha xogayaha guud guddoomiye ma oranayna waa guddoomiyaha jaaliyadda
Germany ma aqaan haddana u malayn maayo Germany waa inuu gudoomiyaha xilka wareejiya oo jaariska dhalinyarada ku wareejiya xogayaha guud ee dalladda isbiddo محمد كوسو دو رياضي مناسب كهذا ورنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم قدومي أربعة ومحسن تهاي أنا جماعة قدومي الله يبارك دوران وحلا يدور حقهيه هنا وأديجة برشة وأديجة وسكرتيري إذا كنا بان سكرتيري دينا هاي شغالة دينا هاي إن شاء الله وحرجينا يا شغلة إذا إن سي هوفن وعبير ونيت سميع أنو كتو waxa kale oo rabaa inta inaan ku daro maanta aniga iyo jaaliyadaydii Germany doorashadii baan la tagnay laakiin libinta reer Denmark iyo Puntland baa iska leh gaar ahaan magaalada Oos iyo gabdhahooda dhalinyarada qurxaha badan mudanayaal iyo marwooyin hadalka badin mayo waxaan rabaa hal eray inaan ku soo gunaanado hadalkayga eraygaasi waxa weeye mudanayaal waxaynu wadajirka waxaynu ku wada qabsan karnaa wax badan qof walba oo inaga ka midana wax gaar ah ayuu qaban karaa wadajirkii maanta waynu u fadhinaa ma sha Allah weeye sida quruxda badan ay waxaynu ku dhaceen laakiin waxaan rabaa inaan ka dardaarmo waxa qof walba oo inaga ka mida uu qaban karo waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin waxaan dadkiina qurbaha jooga inaad caruurtiina geysaan dalkeenii hooyo waa wax weyn oo waxtar bulshadeena kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba u taraya waxaan aan u geeyey sanadkii hore caruur aan dhalay dalka Puntland caruurtaydu waxay iga codsadaan sanad walba inaan geeyo Puntland waa waxa ugu yar oo aynu qaban karno aad baad u mahadsantihiin mar kale waxaan kusoo gunaanadayaa kusoo wareejinayaa gudoomiyaha golaha dhexe ee midowga jaaliyadaha isbiddo iyo guddiga doorashada waa mahadsantihiin guddiga doorashada